Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusoo dhawaada channelkayga Somali Code. Please intaanan guda gelin lecturekeena ama waxaan idin wado maanta baartigaan idin wado. Please marka hore waxaad qortaa Somali Code enter. waxaad arkaysaa profileka kan Somali Code ku qoran tahay. Click see. Please subscribe garee haddana button ba kusoo baxaya kadib buttonkaasna click see. waxaad heli kartaa lectures ka badan 10 badan 30 video oo ku jira kana hadlaya web development iyo programming iyo operating systems iyo WordPress waxa dhan inshallah way ku jiraan. inshallah network-na waa soo gelinayna sida computerada la isku xiro sida computerada loogu manage gareeyo hal computers badan ugu xidhi kadib sida loo sameeyo social media sida loo sameeyo application e-commerce iyo waxa dhan waad ka heli kartaan halka kan. Please intaasaan ka codsanayaa after that waxaan guda galaynaa lecturekeena maanta wuxuu noo joogaa halka kan ayaan sameynay oo waxay tahay waa postiga meesha postiga laga geliyo. marka sida aan horay idinku soo sharaxay halka kan waxa ka soo baxay session-kayga name-ka oo qofkii online-ka markaas ah oo user-ka ah soo galay login-kiisa. inshallah halka online-ada ayaa ka soo bixi doona. halka kan waa options-kii ahaa in qofka profile-kiisa uu aadi karo videos-ga collection-ka oo loo meelaha videoda dhan dadku markay soo geliyaan page-ka videos-ka markay isku soo ururaan meel aad ka daawo kadib all videos sida YouTube oo kale. meesha news feed-kaaga weeye message-yada halkan ay kugu soo dhacayaan. halka kan waxa ka soo dhici doona message-kaaga content-kiisa ama kuwa aan wali akhrin inbox-ka ayaa ka kugu soo dhici doona kadib message-kan halka kan uu ku yimaado doona oo ku dhufan doonta meel message ayaan sameyn doona inshallah. setting-ki way halka kan setting waxyaabo badan ba ka dhex qaban doontaan haddii aad password-kaaga doonayso inaad bedeshid haddii aad doonaysid macnihii profile-kaaga inaad ka bedeshid waxyaabahaas badan ba halka ku sameyn doonaa. notice-ka waxa weeye kan privacy buu noqon doonaa inshallah. wuxuuna u noqon doonaa in privacy wuxuu u noqon doonaa qofka kaliya ee user-ka kale page-ka kale account-ga leh oo doonaya in wax ku save gareysto sida lectures casharo qoraalo uu qorto waxyaabo uu soo doon gareysto uu ku rito waxyaabo badan baan halkan ka soo doontaa. halka kan album-kaaga ayaa gali doona. saa arkaysid halka kan upload image weeye. halka kan image ayaad dooro doontaan image ayaa soo geli doontaan. halka kan video ayaa doono doontaan videoga. halka kan waxaad ku geli doontaan URL-ka ama website aad wax ka doonaysid inaad ku share gareysid asxaabtaada ayaad xagga gelinaysaa kadibna qoraal ayaad gelinaysaa. qoraalka ka bacdi waxaad raaci kadhaa emoji adoo qoslaya raaci kadhaa waxaad dhigi kadhaa bas ka qori doontaa kadib emoji baa raaci kadhaa. emojigu wax walba leeyahay saacadkii buu leeyahay wax walba leeyahay wuxuu leeyahay ilmo yar haddaad soo xadoontid wuxuu leeyahay sida Facebook u leeyihiin iyo YouTube-ka iyo WhatsApp iyo all way leeyihiin baad ka heli kadhaa. wadanka doontid ayaad gaarsiin kadhaa wadanka doontid ayaa ka shaqeyn kadhaa. kadib post baa leedahay kadib halkaas noo soo gali doonaa inshallah. iska delete halka kan post buu noqonaysaa inshallah. waxaan ku xiri doonaa disable baan ka dhigi doonaa haddii meesha cilad tahay uusan qofku post iskaga dhigi karin uusan post u taaban karin ilaa uu wax geliyo meelaha kan. saas ayaan doonaynaa. kadib halka kan waxa ka soo bixi doona qoraalka aad soo gashatay halka kan ee postigaaga ahaa ayaa halkan soo gali doona ama qof walba postiga ayuu soo badala arki doontaa postigu saatan ayuu noqon doonaa. commentiga ka bixisid comment baad ka bixinaysaa halkan si commentiga way halka kana commentiyada ka soo baxayaan qofka commentigiisa ama marka aad ku dhufatid commentiga
pop up baa sameyn doonaa kasoo bixi doona front page kaaga oo commentiyada dhan leh insha Allah replay hataa waa ku dari doonaa inta tan ka bacdi markaan sameeyno like waa kaas iyo comment halkan waxaa kasoo bixi doona inta contiga like inta like aad tiraahday iyo inta qof oo like tiraahday ayaa kasoo bixi doona halkii qof uu like siiyo mar labaad ma sii karo unlike bay isku bedelaysaa halkaas halkan commentiga ayaa kasoo bixi doona qof walba commentiga bixiyaa kasoo bixi doona halkan ay halka post uu leeyahay URL ka markii aad halkan soo gashatid sida youtube.com oo kale saatan ayuu u soo baxayaa koortii lagu dhufto wuxuu ku geey doonaa youtube kuna geey doonaa insha Allah commentiga halkan ayaa laga bixinayaa qoraal baa raacinaysaa waxaad raaci ka dhaca oo kale isagana emoji ayaa raaci ka dhaca oo aan soo sharaxnay emojigana idinkuma cusba social media all way leeyihiin submit baa haddana waxaa dhudhaysaa kadib qoraalada halkan kasoo baxi doonaan insha Allah halkan waxaan kasoo saari doonaa online userska intaas kalena shalan soo sharaxnay marka telefonka uu qofka ka isticmaalayo saatan ay noqonayaa telefonka qofka markuu ka isticmaalayo saatan ay noqonaysaa qofka telefonka uu ka isticmaali karaa desktop uu ka isticmaali karaa halkan ayaa galaya wax oo dhan halkan waxa weeye kuwa halkan kan yaala weeye kuwa kan weeye kuwa kan halkan geeska kan options ka weeye kuwa kan halkan yaala halkan waxa weeye sida caadiga ahayd notification kii waxyaabihi weeye halkan waxa weeye watch video news feed messages setting notes your album intii weeye halkan saas ayaa noqonaysaa marka uu yaraado waa iska celinaysaa posts ka halkan weeye halkan waxa weeye image kii halkan waxa weeye videos kii halkan waxa gali doontaan sida caadiga ah inay soo sharxay URL kii weeye waa emoji kii wixii waad galinaysaan halkan qofka markuu taabto post uu leeyahay saatan ay u soconaysaa saatan ay noqonaysaa insha Allah biidhnaahi ta'ala kareem submit baa leedahay halkaas ama comment waa bedelena waan bedelena submit ka waxaan ka dhigi doonaa comment yes comment baan ka dhignay wakaas comment ayaa noqonaysaa wakaas that's it wax badan ma qorin code badan ma qorin step by step baan wadaynaa page ka hore waan dhameynay kadibna waxaan gudbaynaa dynamic baan ka dhigaynaa oo waxa la soo gashid ayaa halka soo bixi doona video baan gali doonaa halkan aan soo sameynay hadda bariskiisa ama controlska sida videoyada caadiga ee YouTube-ka ayaa halka kasoo bixi doona bariska halkan videoga ayuu noqon doona insha Allah wakaas waxaan u gudbaynaa in aan sharaxno hadeer code-ka marka code-ku ma badna ha arkin qoraalada waxyaabaha kan oo dhan just waxaan ku sameeyay CSS iyo HTML iyo JavaScript base marka JavaScript kaliya waxaan ku sameeyay waa emojaha ayaan soo qaadanay oo JavaScript ku sameeynay marka inta kaliya weeye marka waxaan fiirinaynaa code-ka hadii aan dib u noqono halkan waxaan ku soo xiranay header-ka qaabka uu soo xidhay baa leeyahay su'aashu waxay taalaa qaabka uu soo xidhay header-ka waxaan sameystay folder la yiraahdo inc sida aan hore idigu soo sheegay aan ugu soo xireynay database oo kale ayaan ugu soo xireynay include ones waxaan noogu dhex jira waxaan iri noogu xir folderka noo dhex gali waxa ku dhex jira header.php ga oo ah headerkaas igu soo xir oo headerkaas xagee ka yimi headerkii waa kan waxaan soo goostay intii oo dhan ilaa iyo badiga ilaa navbarka oo ah inta koro cagaarka ay oo dhan baan jaray intaas oo dhan baan jaray ilaa halkaas ayaan qaatay
saan mar walba u isticmaalo ileen bahalka cagaarka ah page bahalkayga T Smart oo dhan ayaan ku isticmaalaynaa saad ogtihiin headerka oo dhan baan ku isticmaalaynaa marka halka kan ayaan ku soo xiray marka uu ku xiran yahay weeye headerkii waad saa arkaysaan div baan ka bilownay divkaas wuxuu ku xirmayaa halkaas halkan ayuu ku xirmayaa saad arkaysaan koodka intaas kaliya divka kaliya waa noo hayay koodka waxaan samaysanay row oo aad ogtihiin inay tahay bootstrap aan hore usoo baranay col binary lk2 col md2 col sm2 marka waa kuwa weeye waa kan weeye lk2 kan ka hadlayo waxa weeye linkskan halkaymo div way set nav waa isla sagi weeye oo waa set barka weeye options baan ku qoray waa optionskaas weeye kadib baan waxaan sameeyay div kale classka kan marabo div baan samaystay divkan waxa igu jira ul kaas wuxuu ku xirmay kaas wuxuu ku xirmay halka waxa igu jira li waxaan rabaa inay sa u kala degdegaan si haddii u kala degdegsan baa u kala dejiyay intaasaan ku jira intaasaan ku qortay halka kan sida hore idinku soo sheegay waxa weeye namekeyga kan page-ka oo dhan wuu ku soconayaa bahalka kan inkasta hadhow isbedeli doonaan isku bedeli doonto qofka kale userkiisa okay marka halka kan imo li sidii ku soconaysaa oo kaas ul ka halkaas ku xirmanaysaa set navkana halkaas ayuu noogu dhamaaday halkana imaanaynaa waxa weeye col set bar left and halka ku dhamaatay postiga ayaa noo bilowday marka div baan bilownay divka kan wuxuu noogu xirmayaa saad arkaysaan halka kan ayuu ku xirmayaa halkan ayuu ka xirmayaa marka waxa noogu jira divka waxa noogu jira posts oo aan css kiisa aan ku soo qornay posts yes css kiisa aan ku qornay inta kaliya inuu kor nooga soo dago posts baan noogu jirayaa waxaan isticmaalay font awesome kii baan isticmaalay icon font awesome kadib div binary container post oo ii wadaaya meesha tan oo dhan ii wadaaya inta tan oo dhan buu ii wadaaya waxa kaloo dhan buu ii wadaaya container post kadib form baan samaystay formka div form control row baan samaystay col baa haddana samaystay oo md6 sm2 alif image import oo ah bahalka kan cagaarka ah oo picture-ka ah ayaan samaystay 6 marka laba weeye labaan samaystay midka kalena waa kan halka kan ku xirmaya marka labadaas waa kee labada tan weeye videoga iyo waxa weeye image-ka ayaan samaystay input file baa ii dhex galay kadibna waxaan isticmaalay font awesome-ka kale ayaan isticmaalay font awesome-ka ayaan isticmaalay oo ayda ah kadib upload baan iri image oo qoraal ah oo qoraalka kan ah sida image markaan soo upload garinay sidoo kale ah sidoo kale mid lamidaan sameeyey upload videos marka css kiisa haddaan fiirino css kiisa haddaan fiirino image import control F yes import waa kan import classka inputka waa kan width baan siiyay 80% opacity-ga waan qariyay sababtoo ah hadda waxa la arkayaa kaliya waxa la arkayaa kaamirada z index-ka ayaan gadaal geeyay
waxaan soo hormariyay inputkii baan soo hormariyay haddii haddaan idin tuso aan ka qaado aidno waxaad arkaysaan choose file yes labadooda ka soo baxeen laakiin haddii aan qariyo waxaad arkaysaan kaameradii iyo waxaad arkaysaan videoga z index baan kaga soo saaray bayri file image waxa weeye kaamirada weeye kaamirada oo tan ah kaamirada tan aan ka soo qaatay font awesome-ka tan file image display block bayri position ba ku keenay top baan kor u galay font weight kii width baan siiyay z index ka -1 bayri gadaal gay bayri font size kana 30 pixel border radius color green left marka same way asagayo video marka labada tan hal code baan u isticmaalay halka code aan u isticmaalay code kan hadda akhrinay kaliya aan u isticmaalay kadib baan waxa yiri import video marka xaga kan different samaystay waxa weeye URL-ka oo URL-ka kan weeye kadib waxaan samaystay text area marka ay timaadaan waxa ku jira emoji ba ku jira emoji-ga soo keentay emoji-ga waxaan u keenay name by post comment oo aan hadhoodii ku qaban doono shaqada name-ka php-da placeholder-ka intaas aan ku qoray id baan siistay oo ah my text area my text-kaas id-gaas ayaan isticmaalay markii aan tago JS-kayga waxaan samaystay main.js window kii hore login-kayga bay ahaayeen kana waxa weeye waxaan furtay jQuery function-kii baan furtay document-kii baan furtay my text-kii waxa weeye text area-daas soo qaatay waxaan isticmaalay library ah emoji one area halkee ka helaa weeye emoji one area waxaad ka helaysaa haddii aan fiirino line web development emoji links yes halkan website-kaas ayaa ka heli kartaan waa cdngs.com kaliya waxaad u baahan tahay inaad qaadatid minify kan inaad qaadatid css minify iyo js minify halkan ayaa tagaysaa code baa leedahay that's it waa intaa kaliya weeye waxaan idhi picker position button baa idhi okay haddana kanna waxa weeye waa kan weeye commentiga qofka markuu qorayo inuu ku darsado qosol ama u raaciyo qofka halkan emoji one area isla si baan u isticmaalay picker position top saga top iyo bottom kuna waxay tahay kan wuxuu ka soo baxayaa kor ka soo baxaya halkaa kan kalena wuxuu ka soo baxayaa hoos okay hadda way la fahantay ma filaya top iyo bottom-ka xagga kan intaas ayaan ku soo xirnay javascript-kii kadib baan waxaan samaystay input-kii button-kii weeye waa button-ka kan way post-ga weeye hagaas ptn-ka waxaa ku jiraya value waa post form-kaas halkaas iga dhamaaday comment area baan yimi row baan samaystay start section comment end section comment okay waxaan samaystay call md2 alif sm wrapper comment oo waxa weeye bahalka cad oo dhan weeye bahalka kan cad oo dhan ayaan ka maamulaya halkaasaan ka maamulay wakaas comment name baan samaystay baa igu jira waxa igu sii jiraya image waxa weeye image-ka kan halka kan ka muuqda iyo magacaas iyo date-kaas saddexdaba halkaas ayay eedaasi ku jiraan image-ka waa kaas 52 baan siiyey image circle waxaan isticmaalay class bootstrap image div halkaasaan ka gashtay magaca qofka waxa kasoo baxaya halka user-ka magaciisa ayaa kasoo bixi doona insha allah
halka kan waxa weeye comment body waxa weeye waa qoraalka kan image ka waxyaabo oo dhan weeye commentigiiba ku jira like oo ku jira waxa dhan b baan furtay commentiga halka kan ayaa ka soo baxaysaa isbaankana URL ka ka soo baxaya qofka URL ka soo gashta halka marka URL soo gelisid saatan kale ayuu noqonayaa kadib baad waxa sameynaysaa URL ka ayaa halka ka soo baxaya insha Allah kadib dif kale ayaa sameynaa image ah oo image kan ah kadib waxaan sameynay image ka soo gelinay halkaas ayay ku xirantay hrefka hr waxa weeye diilinta tan halka ka arkaysan yarka ah oo khafiiftaada ila arkaysid diilintaas weeye hr kadib waxa ay comment body here start comment like ba halka ka bilowday p baneri 100 waa kontiga height waxaan isticmaalay font awesome ee wadnaha ayaan isticmaalay inta kaliya waxa weeye waa intaas HR bayri waa HR ka waa baalka hoose weeye like oo ah kan like-aas weeye halka kan intaas waa intaas weeye spam baa gashtay commentigana isla sidii weeye commentigan waa kan like-gan waa kan waxaan isticmaalay clear pause oo floating rate ka ilaalinaya marka haganimo area text waxa weeye commentigan isla sidii baan isticmaalay waxa weeye meesha commentiga oo kore halkaas iyo commentiga kan halka kan isticmaalay clear path area text waxa weeye areadii waxa weeye kan weeye halka kan wax ku jira waxaan isticmaalay j baan isticmaalay ajay yes commentary text again ayaa isticmaalay id-gaas aan isticmaalay hadaa ku noqotid gs ka hadaa ku noqotid yes id-ga waa kaas emojis le intii baan isticmaalay okay hadaya ayaan sharaxnayna waa kaas diffka kaas nooga xirmay diff kale input type submit key ayaa sameynay oo kan ah kadibna one comment karana value waxa lagu jiro comment clear pause markaan dhahayo waxa weeye floating ka ayaa ilaalinaya form ka kaasoo nooga xirmay kan waxa weeye commentiga meesha ka soo bixi lahaa c comment waa bahalka kan kaliya hadhow javascript oo isticmaali doonaa bababka displaying comment here halka kan ka soo baxayaan commentiyadii waxaa samaystay div waxaa ku jira user comment right qofka commentiga soo qoray camal image-kiisi iyo name-kiisi waa halka kan image-ki name-kii kadibna b paragraph baa iri halkaas ayaa qoraalka ka soo bixi doona qofka uu qoro divkaas halkaas ku xirmay div kale user kadib waa ku copyey oo waa kuwa kan oo badan weeye that's it telefonkan markuu noqdo saatan ayay noqonayaan saatan ayay noqonayaan telefonka yugiisa okay saatan ayay noqonayaan that's it way dhan yihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan kaa codsanayaa inaad asxaabtaada la wadaagtid please share like iyo comment haddii aad subscribe already ku ahaa haddii kalena please subscribe samee like iyo comment iyo share na kaa codsanayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu